waxay noqotay wax dadkii dalkaasi u qaadan waayeen oo in badan ama ka ku riday kadib markii xukuumadda waddanka Ruushku go'aan ku gaadhay Sabtidii Doraad ay suuqyada iyo wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ruushka ku soo daayeen in ka badan 800 oo iskugu jira libaaxyo iyo shabeello dad qaada si ay dadkooda ugu khasbaan inay guryahooda ku sugnaadaan oo aanay sharaaciyada iyo suuqyada u soo bixin si looga hortago faafitaanka caabuqa coronavirus oo farabaas ku haya dalalka caalamka. wadooyinka waaweyn iyo suuqyada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ruushka sida Moscow, St. Petersburg, Kasana, Sochi iyo kuwa kale oo badan ayaa mar qura Doraad subax lagu waabariistay iyadoo ay kala xidheen shabeelle iyo libaaxyo waaweyn oo argagax geliyay dadkii magaalooyinkaasi deganaa kuwaas oo ay khasab ku noqotay in qof waliba qolkiisa hoosta ka soo xidho oo aanu samaynin wax dhaqdhaqaaq ah oo dibadda ugu soo baxayo sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka ee Interfax ee dalka Ruushka. madaxweyne Vladimir Putin ayaa la xaqiijiyay inuu isagu bixiyay amarka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi loogu sii dhexdeynayo libaaxyada iyo shabeellada kuwaasi oo dad qaada qaarkoodna uba muuqdaan kuwa gaajaysan oo haddii ay dadka helaan daqiiqad ku kala goosanaya. arrintaasi ayaa ugu dambeyn keentay in habeen hore ilaa shalay cidi dibadda u soo bixin iyadoo kaliya telefishinada laga daawanayay libaaxyada iyo shabeellada gaaf wareegaya wadooyinka iyo meelihii saxmadda ahaan jiray oo imika noqday kuwa haawanaya oo aanay laba qof dhex maray. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo qoraal kooban shacabka dalkiisa kula wadaagay barta uu ku leeyahay Twitterka waxa uu yidhi waxaan jeclaysanay inaanu libaaxyo iyo shabeelle ku soo deeyno magaalooyinka si ay dadku guryahooda ugu nagaadaan. waxaan awoodnay inaanu dadka amar ku soo rogno oo aanu u sheegno inay guryahooda ku sugnaadaan oo aanay u soo bixin si looga hortago loona xakameeyo cudurka halista ee coronavirus, balse waxaanu go'aansanay inaanu libaaxyada iyo shabeellada meel walba ku soo deeyno si looga baqdo oo aanay cidina iskugu iman dibadda halkii aanu qofkii dibadda u soo baxa xabsi geyn lahayn. dhinaca kale wasiir xukuumadda ka tirsan ayaa sheegay dawladdu aanay doonaynin qofna uu dareemo in xabsi guri la geliyay oo xorriyadda laga qaaday. sidaa daraadeed fikirkan uu madaxweynahoodu keenay si iyadoo aan qofna la khasbin haddana qof waliba gurigiisa hoosta uga soo xidho si ay uga badbaadaan libaaxyada iyo shabeellada gaajaysan ee meel walba yaacaya. shalay oo axad ahayd kaliya waddanka Ruushka waxaa laga diiwaangeliyay in ka badan 61 kiis oo coronavirus taasi oo tirada guud ee dalka Ruushka ee uu haleelay cudurkani ka dhigaysa ilaa imika 367 qof. Xamse Gelle.